sheekooyinka iyo qisaska iyo qoraalada markaasi waxa weeye wax ku oolka ah. Qoraalka aanu toddobaadkan soo qaadanayno waxaa qoray qoraaga weyn ee Soomaaliyeed Cabdisiciid Cabdi Ismaaciil, waana diin iyo sheeko xariiro maxay kala yihiin. waxaan codkiisa ku laray oo halkan idinkaga soo gudbinaya waa anigoo ah Axmed Cabdi Tooyo. sidaan ayayna ku bilaabanaysaa ka bawasho wanaagsan. diin iyo sheeko xariir maxay kala yihiin. maalmihii la soo dhaafay 3 qofba midba mar wax iga weydiiyey mowduuca diinta iyo sheeko xariirta. waxaana qiyaasayaa inay jiraan dad badan oo danaynaya inay arrinkaasi wax ka ogaadaan. sidaa daraaddeed sadarrada soo socda waxaan faallo kooban uga bixinayaa diin iyo sheeko xariir, waxa ay kala yihiin iyo xiriirka ka dhexeeya. waxaana ka cudur daaranayaa in qoraalkan uu ila fogaaday buu yidhi qoraaga sheekada tan. noloshu iskeed macno uma leh, waxaana macno u yeela waa sida dadku ay uga falceliyaan ugana sheekeeyaan dhacdooyinka soo mara. dadku waxa ay ka sheekeeyaan qisooyin ku saabsan sida koonka loo uumay, halganka ay nolosha u soo mareen, guulihii iyo guuldarrooyinkii ay ka soo hoyeen, dagaalka ay kula jiraan damaca iyo baqdinta. sheeko xariirta waxaa lagu qeexaa inay tahay rajada dadweynaha, waxaana lagu cabiraa damaca uu leeyahay iyo rajada uu qabo, dhibaatooyinka ka hor yimaada iyo waxyaabaha uu ka walwalo aadanuhu. waxay wadaagaan xubno jir oo isku mid ah iyo marxalado nololeed ilaa heer isku dhow. dhacdooyinka la soo darsana waxay uga falceliyaan siyaabo aan kala fogeyn. sidaa awgeed baa dadku meel kastoo ay dunida kaga nool yihiin waxa ay wadaagaan sheeko xariiro isku mawduucyo ka hadla. tusaale ahaan, aqoon-yahanada sheeko xariiraha baara waxay rumaysan yihiin in dadyowga adduunka oo idili, si kasta oo dhulkoodu, dhaqankooda iyo diintoodu ay u kala gedisan yihiin, ay wadaagaan sheeko xariiro aad iskugu dhow oo ka hadla abuurka koonka. qaar ka mid a aqoon-yahanadaasi waxa ay qabaan in qisada abuurka ee lagu xusay inta badan kutubta muqadaska ah ee diimuhu ay ka soo jeedaan isla sheeko xariirtaas ay dadku curiyeen kumanaan sano ka hor. sheekadu waa mid qurax, laakiin waxaa kala gedisan faahfaahinteeda. sheeko xariiruhu waxa ay ka hadlaan damaca iyo baqdinta nafta aadamiga. waa cilmi nafsi, naftayda iyo tan aadamigu wax nooga sheegaya, waxayna kaalin weyn ka qaataan dhammaan ilbaxnimooyinkii dunida soo maray. Professor Joseph Campbell oo nagu baraarujinaya ahmiyadda sheeko xariiruhu ay aadamiga u leedahay waxa uu yidhi, haddii noole koon kale ka yimaad oo uu ku weydiiyo sideebaan wax uga ogaan karaa waxa bini'aadam uu yahay, jawaabta ugu habboon waxa ay noqonaysaa sheeko xariiraha baro, study mythology. si kastaba ha ahaatee, weydiinta meesha ku jirtaabaa waxay tahay, sheeko xariirtu ma wax xunba? dad badan ereyga sheeko xariir waxa uu ula macno yahay ereyga been. marka ay maqlaanna waxa ay sawirtaan wax liita oo aan qiimo lahayn, aanan loo baahnayn in barbardhig lagu sameeyo diin iyo sheeko xariir. sidee la isku barbardhigi karaa diin muqadas ah iyo sheeko xariir been ah? sida runta ah, sheeko xariirtu ma ahan been iyo wax liita toona, balse waa waxa nolosha aadanaha quruxda iyo macnaha u yeela. ereyga sheeko xariir ma tusiyo macnaha ah been, ee wuxuu tusiyaa macnaha ah sarbeeb, almujas, metafo. sheeko xariiruhu been ma sheegaan, laakiin waxay si sarbeeba u sheegaan run aan lagu dhicin in si toos ah erayo qayaxan loogu tabiyo. waxaa la yidhaahdaa sheeko xariiruhu waxay ka warramaan dhacdooyin aan dhab ahaan u dhicin, laakiin runi ay ka buuxdo. ereyga Soomaaliga ah ee sheeko xariir wuxuu Soomaalida ugu jiraa halka ereyada myth ama al-astuura iyo fable ama xikaaya iyo kuwa la macnaha ah oo wada jira ay afafka qalaad ugu jiraan. ereyadaasi caadi ahaan ma tusiyaan macnaha ah been, laakiin waxay tusiyaan macnaha ah hadal ama sheeko leh xaalad iyo xiiso waara. sheeko xariirtu sheekooyinka caadiga ah waxa ay uga duwan tahay inay ka hadasho mowduucyo waaweyn sida ilaahiyada iyo halyeeyada, saameynteeduna ay waarto oo boqolaal ama kumanyaal sano laga sheekeeyo, iyada oo facayaasha kala dambeeya ay ku murmaan fasiraadda ugu wanaagsan ee la siinayo. sheeko xariirta ummadaha adduunka oo dhan baa wadaaga, waxaana loo adeegsadaa si loo fasiro ifafaalayaasha koonka iyo nafta aadanaha lagu arko, sida dhalashada iyo dhimashada, qorax soo baxa iyo qorax dhaca, qudcurka iyo caddada, xilliyada sanadka, roobka, onkodka iyo qaar kale oo badan. ifafaalayaal badan oo maanta saynisku macneeyo kumanyaal sano waxaa fasiri jiray sheeko xariirta.
sheeko xariirtu ma ahan taariikh loomana sheego si loo xuso dhacdo waa meel ka dhacday balse waxaa loo sheegaa si nafta aadanaha wax looga ogaado marka ayeydaa ama awowgaa ay kaaga sheekaynayaan sheeko xariiraha Soomaalida sida dhagdheer iyo carraweelo iyaga iyo bulsho weyntii sheekooyinka curiyey midna ulajeedadoodu ma aysan ahayn in cid been loo sheego meel walba iyo markasta ulajeedada laga leeyahay sheeko xariirtu waa in si dadban loo gudbiyo fariin aan afka lagu ballaarin karin ama aku ballaarintu ay nuxurka iyo quluudka ka qaadayso waa jahli iyo garasho yari in sheeko xariiraha been lagu sheego sheeko xariiruhu waxa ay ka hadlaan mowduucyo waaweyn sida ilaahyada ambiyada awliyada qiyaamaha boqorada haliyeeyada dhalashada iyo dhimashada sayga iyo afada waalidka iyo carruurta iyo mowduucyo kale oo wada xasaasi ah oo ay adag tahay in si cad carabka loogu dhufto sheeko xariirta waxaa la adeegsadaa marka arrinku uu taagan yahay xaalad la mid ah xaaladii haysatay Soomaaligii yidhi haddaan hadalno waa afsalax ku dheg haddii aan aamusnana ariga sidaan laga dayn maayo waxyaabaha ka qayb qaata burburka diimaha waxaa ka mid ah in sheekooyinka diinta lagu xusay loo qaato inay yihiin dhacdooyin taariikh ah oo dhab ahaan waa meel uga dhacay kolka qofku uu naftiisa ku dirqiyo inuu rumaysto in sheekooyinka ku jira kutubta dadka muqaddaska u ah sida Gita, Bible-ka iyo Quraanku ay yihiin dhacdooyin run ah oo saban la arkay dabadeedna naftu ay ka biyo diido oo ay ku adkaysato in aysan suuragal ahayn in dhacdooyinkaas ay dhab ahaan u jiraan natiijada ka dhalata alaaba waxa ay noqotaa shaki iyo kutub xornimo aqoon-yahanadu tan iyo sabankii Aristotle waxay aadamiga ku qeexaan inuu yahay noole caqli leh qeexidan markay ugu yaraato waa mid aad loo bunbuniyey aadamigu ma ahan noole garaad leh balse waa noole sheeko xariir falkiya dadku waxay leeyihiin caqli iyo caadifad inta ay caadifada adeegsadaan baa ka badan inta ay caqliga adeegsadaan waxyaabaha faraha badan ee aan caadifada ku garanno waa sheeko xariir nolosha dadkuna dhadhan iyo macno ma yeelateen haddii aan sheeko xariir jirin ahmiyadda iyo dareenka sheekooyinku abuuraan waxaa si fudud lagu ogaan karaa marka la arko ilmo yar oo erayada afkiisu ay kooban yihiin oo marka sheeko xariir loo taleexiyo la yaab iyo ka helid muujiya ciddii u sheegtayna ka codsada inay mar kale u biisto ama ugu celiso sheekada kun habeen iyo habeen waxay noo sheegaysaa in Shahrisaad ay kun habeen nafteeda boqorkii dili lahaa uga badbaadisay sheeko xariir ay xaaladeeda dhexda uga istaajinaysay kun habeen kadib boqorku halkii uu ka dili lahaa uu guursaday oo ay markaa boqorad noqotay Soomaalidu waa tan tiraahda warbaa ugu baahi badan caqliga waxaan u adeegsanaa xisaabta sayniska suuqa lacagta iyo arrimo kale oo aan badnayn caadifada ama dareenka waxaan u adeegsanaa diinta gabayga sheekada muusiga dhaantada farshaxanka jacaylka quruxda iyo amuuro kale oo badan dhammaan arrimahaas aan caadifada u adeegsanaa ugu dambeynta waxay soo wada hoosgalayaan sheeko xariirta maxaa yeelay qayaalkoodaba ka badan xaqiiqdooda murti caan ah baa waxay tidhaahdaa kimis la'aan lama noolaado kimis darteedna looma noolaado xisaabta sayniska iyo lacagtu waa kimis naftu nagu hayso sheeko xariirtuna waa ruux nafteenna samada geysa dhegaystow bal waxaa sawirataa duni aan diin jacayl gabay hees dhaanto farshaxan muusig iyo riwaayad aan midna laga aqoon duni aan lagu arag masaajid kaniisado macaabid mawlacyo shaneemo tiyaatar garoomo ciyaareed iyo waxyaabo badan oo kale oo nolosha dadka dhadhan iyo macno u yeela sheeko la'aan haddii intaas la waayo noloshu dadku waxa ay noqon lahayd mid aad u liidata oo aan istaahilin in lagu noolaado filosoofkii Giriiga ahaa ee Aflaatoon buugiisa Jamhuuriyadda Republica wuxuu ku sheegay in magaaladiisa magaalooyinka ugu seexda Idiasit almadinatul faasila uu u ogolaanayn in gabyaa uu ku noolaado sababta Aflaatoon gabayga iyo gabyaaga ku dirtayna waxaa lagu sheegay inuu ka carooday gabyaagii Homer oo qasiidadiisa sheeko xariirta ah ee Odyssey ku xusay arrin ku saabsan mar laba ilaah lagu qabtay iyaga oo qaawan oo jacayl gogol dhaaf ah wadaagaya Aflaatoon wuxuu ku andacooday in ragga gabyaa ay dhalinyarada marin habaabiyaan anshaxana ka dilaan
kadib marka ay uga sheekeeyaan gabayo sheeko xariir ah oo akhlaaqda u daran washucaraa'u yatabacahumul qaawuun. laakiin dadka doodda aflaadoon ka faallooday qaarkood waxay yidhaahdeen haddii aflaadoon uu magaaladiisa gabayga iyo gabyaaga ka mamnuuci lahaa ma uusan helayn dad magaalada dega, maxaa yeelay dadku gabayga iyo gabyaaga ayay falsafadda iyo faylasuufka ka jecel yihiin. dadku waxay isku dayaan nolosha ay ku nool yihiin ay u yeelaan macno la fahmi karo. sheeko xariirtuna waa iskudaygaas nolosha macnaha loogu yeelayo. sidaa daraaddeedna layaab ma leh in brofesor Joseph Campbell uu sheeko xariirta ku qeexay inay tahay suugaanta ruuxda. suugaantuna waxa aan loo jeedin bay waxay ka dhigtaa wax la taaban karo. sheekooyinka kun habeen iyo habeen, alfu leyla wa leyla, mahabharata, iliyad iyo odese iyo qaar kaleba waa sheekooyin dadka akhriskooda iyo dhegaysigoodu ay kumanyaal sano xiisayn jireen, timaadadana la xiisayn doono. waa sheeko faneedyo ka gudbay heerka suugaanta caadiga ah oo qayaalkooda sarreeya uu ka dhigay sheeko xariiro. waa sheekooyin looga gol leeyahay in aadamiga looga kaxeeyo nolosha maadiga ah ee uu ku nool yahay oo wax laga tuso nolosha aan maadiga ahayn iyo maqanaha alle iyo aakhiro. mar kale Joseph Campbell sheeko xariiraha waxa ku tilmaamay inay yihiin heesta koonka, The Song of Universe. akhristaha danaynaya mawduuca sheeko xariiraha siba sheeko xariiraha diintu wuxuu xoog fiican ka heli karaa dhigaalada ay ka mid yihiin kuwa Joseph Campbell sida The Power of Myth, Quwwatul Astura, The Hero with Thousand Faces, Al-Badal bil Alf Waji, The Masks of God iyo buugta aqoonyahanada kale ay qoreen sida buugga James Ferris ee The Golden Bough, Al-Qusnu Dahabi. dhegaysto bal xoogaa yar dooda waxaad uga nasataa qaybta yar ee ka mid ah sheeko xariiraha Giriiga. Zeus iyo Hades waxay ahaayeen laba ilaah oo walaala ah. Zeus waxa uu ahaa ilaaha ilaahyada, wuxuuna xukumay samada iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa. Hades isaguna waxa uu ahaa ilaaha aakhirada. Zeus iyo ilaahada Demeter oo ahayd afadiisu waxa ay dhaleen gabar la yiraahdo Persephone, oo maadaama ay laba ilaah iska dhaleen aan qaban jirin wax shaqo ah oo aan ka ahayn dalxiis iyo daawashada beeraha ubaxa. Demeter oo la qiyaasayo in rag badani ay been u sheegeen ma ogolayn in gabadheedu ay guursato, oo barbaar kasta oo soo doona waa u dayrin jirtay. maalinkii dambe ayaa Hades oo dunida u soo dalxiis tegey waxa uu arkay Persephone oo beer ubax ka guranaysa. isla eegmadii koowaadna wuu caashaqay, isaga oo ogaa in hooyadeed aysan u ogolaanayn darteed ayuu wuxuu u tegay walaalkii Zeus, waxaana dhex martay sheeko sidaan hoose loo soo wariyey. Hades, Zeus idhegayso, anigu inantaada ayaan aad u jeclahay. Zeus ayaa yidhi waa gartay, waa inan quruxle ah. Hades, sidee bay kula tahay in aan qalbigeeda ku hanan karo? qalbiyada gabdhaha ubax iyo dahab baa lagu kasbadaa, ha yeeshee iyadu waa ilaahada ubaxa, waxaana dhalay laba ilaah oo dahab baahi uma ay qabto. ka waran haddii aan hees u qaado ama aan gabay u tiriyo. Zeus ayaa yidhi war gabadha waa la qanci karaa, laakiin hooyadeed xageebaa laga maraya. Hades, haddaba maxaa xal ah? Zeus ayaa yidhi afduub. ma jirto wax haweenku ay ka jecel yihiin in cagaha dhulka looga qaado oo la afduubo. Hades ayaa yidhi laakiin waa inantaada. Zeus ayaa ku celiyey oo yidhi hadday tahana. Hades u malayn maayo in ay tahay talo wanaagsan. Zeus ayaa yidhi eeg, aniga iyo adigu keeneebaa dumar badan guursaday if iyo aakhiro, midna ma ku og tahay cid dumar iga basatay. iga rumayso waad ku guulaysanaysaa. Hades ayaa ugu dambayntii yidhi hagaag, waan abdaynayaa inay shaqayso. intaas kadib Hades gabadhii buu afduubay oo sidaas ku guursaday. raggu meelay joogaanba falkaas waxay ka barteen dhaqanka masaafaysiga ee gabdhaha lagula baxo. Demeter oo ahayd ilaahada roobku markay ogaatay in Hades uu gabadheeda afduubay, waxay ku dhaaratay in aan dhulka dhibic roobihii ku diidoonin jeer loo soo celiyo gabadheeda. Zeus oo dareemay cawaaqib xumada ka dhalanaysa go'aanka Demeter wuxuu isku dayay inuu heshiisiiyo Demeter iyo Hades. xalna waxaa loo arkay in gabadhu 6 bilood oo sanadka ka mid yihiin ay hooyadeed dhulka hoogadiisa kula noolaato, 6 bilood ee kalena ay seegeeda dhulka hoostiisa kula noolaato. 6 bilood ee Persephone ay dhulka joogto waxaa la heli jiray jawi macaan iyo roob, beeruhuna waa bixi jireen. 6 bilood ee ay dhulka hoostiisa ku nooshahayna dhulka waxaa qarin jiray baraf.
sidaasna waxaa lagu bartay 4 xilli ee sanadka. Sheekadu intaas waa ka dheertahay. yeelkeedii marka loo yimaado xiriirka ka dhexeeya diimaha iyo sheeko xariiraha, waxaa la odhan karaa diin iyo sheeko xariir waa sida shilin labadiisa dhinac, oo inkasta oo laba muuqaal oo kala duwan ay leeyihiin, haddana isku sii waxbay tusiyaan. balaayiinta ruux ee dunida ku nool, qolo kasta diinta ay iyadu haysato bay diin u taqaan. diimaha ummadaha kale oo idil ay haystaan sheeko xariir bay u aragtaa. tusaale ahaan, qofka muslimka ah islaamka waa u diin, laakiin boqolaalka ama xataa kumanyaalka diimood ee kale ee dunida laga haysto wuxuu u arkaa sheeko xariir. si taa la mid ah, shintaha Jabaan ku nool waxay la tahay in shintuhu ay tahay diin sax ah, laakiin wixii ka soo haray oo dhammi ay yihiin sheeko xariir. sidaa awgeed, sheeko xariirta waxaa lagu qeexaa inay tahay dad kale diintood, other people's religion. diinta waxaa lagu qeexaa sheeko xariir qalad loo fahmay, misunderstood methodology. diinta aad adigu rumaysan tahay waa kuu diin, laakiin diinta dadka kale ay rumaysan yihiin waa kuu sheeko xariir. dadka kale iyaguna dhankooda diinta ay rumaysan yihiin waxay u arkaan diin, laakiin midda aad adigu rumaysan tahay waxay u arkaan sheeko xariir. waxaa hubaal ah in dad badani ay qeexidan dhibsanayaan, laakiin marka la doonayo in caadifadda la xakameeyo ee caqligu shaqeeyo, runta lama dhaafaankii sidaan bay noqonaysaa. bilmetel, marka muslimiintu ay arkaan malaayiin hinduus ah oo u xaj tegaya webiga Ganges kuna mayranaya iyaga oo aaminsan in ay ajar iyo dembi dhaaf ka helayaan, waxay u qaataan in hinduustu ay yihiin doqomo aan caqli lagu ogeyn oo khuraafaad iyo sheeko xariir laga dhaamiyey. hinduustu dhankooda, goorta ay arkaan malaayiin muslimiin ah oo kabcada dawaafaya, waxay u arkaan inay yihiin xoolo aan bar caqli ah lagu ogeyn oo dhagax la dhisay ku dulmeeraysanaya. hinduusiga webiga Ganges ku mayranaya iyo muslimka kabcada ku dawaafaya ee biyaha samsamka marna waraabaya marna isku rashaynaya, keebaa xaqiiqaya, keebaase sheeko xariir taleexinaya? su-aashaas haddii qof muslim ah la weydiiyo, jawaabta ugu dhow ee laga filayaa waa inuu yidhaahdo dabcan waa muslimka samsamka barakaysan waraabaya. haddii qof hinduus ah la weydiiyena, wuxuu odhanayaa shaki la'aan waa hinduusiga webiga barakaysan xumaha iskaga mayraya. haddii la weydiiyo qof aan labadaba midkood ahayna, waxaa laga sugayaa inuu yidhaahdo labaduba khuraafaad iyo sheeko xariir bay rumaysan yihiin. qolo kaste oo dadkaas ka mid yihiina doodooda buug ay aaminsan tahay bay ku salaynaysaa. mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa sheeko xariiri waa diin dadkii rumaysnaa ay dhammaadeen. waxaa kaloo la yidhaahdaa sheeko xariiraha maanta jiraa waa diimihii shalay, diimaha maanta jiraana waa sheeko xariiraha timaadada. sida dhabta ah, diimaha iyo sheeko xariiruhu isku wakhti bay nool yihiin, laakiin waxaa kala duwan qalbiga lagu eegayo. run ahaantii, diinta iyo sheeko xariirtu waxay ku kala duwan yihiin laba arrin oo ay qasab tahay in diimuhu ay yeeshaan, laakiin sheeko xariirta ka maqnaan kara. caadi ahaan, diimuhu waxay leeyihiin caqiido ay lama horaan tahay in la rumeeyo. rumayntana waxaa ka dhalanaya in ficil ahaan loo fuliyo waxa la rumeeyey. sheeko xariirta laguma qasbana in la rumeeyo, haddii la rumaystana ka dhalan mayso in lagu dhaqmo. sidaa aawadeed, waxaa la odhan karaa sheeko xariirtu waa sheeko, laakiin diintu waa iimaan la caashaqo. diini waa caashaq harsi iyo hoyaad looga tago. waa calmasho ka dhalata carbin. qof iyo qolo kasta waxay jecel yihiin diinta ay ku abtirsadaan. jacaylkaasna ma ahan mid barasho iyo fahan ku yimaada, balse wuxuu ka dhashaa carbin waalidka iyo bulshada ay ruuxa tan iyo caruurnimadiisa si toosa ee si dadbanba uga dhaadhiciyaan in diinta dadkiisu ay haystaan ay tahay midda qura ee saxda ah. ruuxa garaadka leh ee doonaya in diintiisa aan sheeko xariir lagu sheegin, waxaa waajib ku noqonaysa in iyadu aysan dadka kale diimahooda sheeko xariir ku sheegin. qofka dadka kale diimahooda sheeko xariirta ku sheega waxa uu la mid yahay qof ruux kale cid uu calmaday doqonnimo ama foolxumo ku sheega. kolka saaxiibka ama saaxiibada dooqooda adcayso ee aad u sheegto in qofka ay caashaqeen laga garaad iyo qurux badan yahay, hadalkaada u qaadan maayaan talo iyo toosin, balse waxay u qaadanayaan cay si toosa aad ugula bareertay. jawaabta aad ka filan kartaa waa inay kugu yidhaahdaan gacaladayda ama gacalkayga waxaa ka doqonsan kana foolxun adigu
midda ama midka aad dooratay waxyaho aan dooqa lagu ogeyn. Marka weligaa cidna diinteeda iyo dooqeeda waxa ka sheegin. Waa lagu qasban yahay in diimaha iyo dooqa laga hadlo, laakiin wax ka sheega ayaa reeban, weliba marka arrinku uu cid si toos ah u quseeyo. Waxaa la sheegaa in sheeko xariiraha la hayo kuwa ugu filka weyn ay yihiin kuwa ka hadla geerida. Taa awgeed waxaa la yidhaahdaa muuqaalka geerida ayaa ah asalka sheeko xariirta. Sheeko xariiraha geerida ka hadla midood oo laga maqlay qabiilka Ashanti ee galbeedka Afrika dega waxay odhanaysaa: duuridii hore dhimasho ma jirin, laakiin waa dambe ayaa waxaa la arkay dad dhimanaya. Markaas ayaa dadku waxa ay Eebbe ka baryeen inuu geerida ka daayo. Eebbena waa ka aqbalay oo muddo 3 dabshid ah geeri lama arag. Hase ahaatee goor dambe ayaa dadku waxa ay ku baraarugeen in 3 sano ee geerida aan la arag, sidoo kale dhalasho la arag. Dadka oo caruur la'aan aad u dhibsanaya waxay Alle ka baryeen inuu ubad siiyo. Eebbena wuu siiyey ubad, wuxuuna u sheegay in hadda kadib dhalashada iyo dhimashadu ay yihiin mataano aan kala harayn. Sheeko xariir kale oo laga helay dadka loo yaqaano Obarajinka ee ku dhaqan Australia oo iyaduna ka hadlaysa sida geeridu ku bilaabatay ayaa waxa ay leedahay: waa hore oo aan weli dhimashada la baran, waxaa meel ku wada noolaa nin iyo xaaskiis iyo ilmo yar oo ay dhaleen iyo wiil barbaar ah oo ay ninka walaalo ahaayeen. Barbaarka oo ahaa doob aan xaas lahayn waxaa hunguri ka galay xaaska walaalkiis. Galab galbaha ka mid ahna wuxuu u yimid iyada oo beerta bataati ka guraysa. Tan iyo gabaldhiciina beerta dhexdeeda bay baashaal ku haysteen. Intii ay baashaalka ku jireen, aabbuhu wuxuu ku mashquulsanaa aamusinta dhallaankii yaraa oo gaajo darteed afka isku qaban waayey. Aabbuhu markii uu cunuga yar aamusin kari waayey ayuu carooday oo hooyada maqan naclad ku tuuray. Fiidkii baa afadii iyo barbaarkii guriga yimaadeen, waxayna arkeen wiilkii yaraa oo gaajo u dhintay. Saygii oo ogaada sababta lagu daahayna wuxuu si ba'an u garaacay walaalkiisna kolkii uu xanuunka u adkaysan waayey buu inta baxsaday daruuraha ka shishamaray. Wuxuuna noqday dayaxa cirka nooga muuqda. Haarihii ka soo gaaray dharbaaxooyinkii walaalkiis ku dhuftayna weli wejigiisa ayay ka muuqdaan, oo waa annaga bil kasta aragnaa sida caddada iyo gudcurku ay uga wada muuqdaan. Saygii wuxuu sheegay in isaguna uu dhimanayo. Wuxuu qaatay saqiirkii dhintay, wuxuuna bilaabay inuu dhaqaaqo isaga oo dhaantaynaya. Waxayna ahayd baroordiiqdii ugu horreysay ee ruux dhinta loo sameeyo ka hor inta uusan aadin badda. Isagoo oo weli dhaantaynayana dib dambe looma arag. Jaalayaal, intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa qoraalkii uu qoray qoraaga weyn ee Soomaaliyeed Cabdisiciid Cabdi Ismaaciil ee ahaa diin iyo sheeko xariiro maxay kala yihiin. Waxaa codkiisa idinku soo gaarsiinayey waa aniga oo Axmed Tooyo. Inta aanu dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.